وهرين وحرنتي عن هذا القصيم دونا أقسمها جودة وسارة معدنتي وتمرتها شعيب عثمان محمود ولينو رنتي موضوع عاص خيرات كوطن كاين لو رجو برواقدك way taaban karaan oo ay ku amal fali karaan sidee loo gaari karaa gasbi sharaxaadaada iyo xogtaada iyo wasaaradda doorkeeda noo sharax insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirka wiilka qurba joogta su'aasha haddaan u soo gudbo sidaynu uga faa'iideysan lahayn oo u bedel lahayn khayraadkeen dal markuu khayraad helo wuxuu noqdaa barwaaqo sooran oo uu uga gudbo inuu noqdo dal barwaaqo ama wuxuu noqdaa course ama caqabad la soo darsa oo ay horseedo barwaaqadaasi waxaana ay ku kala duwan yihiin xeerarka ay u dhigtaan legal frameworks-ka iyo siyaasadaha ay ku hagayaan Somaliland maanta iyaduna waxay ku soo biirtay wadamada khayraadkeedii 5 sano ugu dambeysay haday macdanta noqoto iyo shidaalkaba noqoto ku soo biiray marka si aynu uga mid noqono wadamada barwaaqo sooranka ee ay ummadoodu ka faa'iideysatay waxa weeye inaynu xeerar u samaysanay berihii ugu dambeysana aan ka shaqeynaynay si aynu uga samaysan lahayn xeerka macdanta oo inoo ansaxa siyaasadaha lagu hagayo macdanta iyo ka faa'iideysiga bulshadeena oo khayraadka inoo soo baxa uu noqdo mid gaadha bulshadeena caamkiisa iyo mid gaadha community-ga area-da ku nool oo aanu noqon khayraad horseedi kara colaado iyo iska horimaad halkuu noqon lahaa mid barwaaqo marka xeerarka iyo regulationada ayaa ugu horeeya iyo wacyigelinta bulshada iyo intaan khayraadkeena la soo bixin in la sameeyo environmental assessment dhammaystiran iyo social assessment la sameeyo oo maadaama deegaanku uu yahay mid aynu ku soo noolayn muddo dheer ayna rajeynayno ku noolaano muddo dheer jiilasha inaga dambeeya in aynu ilaalino deegaanka inagoo ka faa'iideysanayna khayraadkeena aad iyo waxaan u gudbi doonaa munamagan oo na soo noqon doona agaasimaha su'aalo badan baa yaala maadaama shidaalkii la soo saari doono macdanaha haddaba la qodo maxay sharciyo diyaariyeen waa su'aal kale oo weydiin doono munamagan baan soo dhaweynayaa muna sidee baa lacagtan ay hayaan qurba joog looga faa'iideysan karaa inay wadanka soo gasho oo development lagu sameeyo energy-ga iyo waxyaabaha kale muhiimka ah ee maalgelinta ah khibradda iyo lacagta qurba joogga sidee looga faa'iideysan karaa absolutely السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي horta idin salaamaya madashan quruxda badan lana aad baan idinku mahadnaqayn wadno qaba qaadisteen waa madal muhiim ah oo ay tahay qurba jooga iyo qaran joog runtii isku wareystaan iyadoona ay ahayn hab dhaqaale ganacsi su'aashaasina waa su'aal aad u fiican oo muhiim ah horta runtii waxa muhiim ah in qofka la fahmo background-kiisa markaas baan su'aasha ka jawaabi karaa anigu ganacsataan ahay wadankan ganacsiga waxaan ka bilaabay muddo 8 sano ka hor Rian Organics dhamaantood maqasheen baan malaya company-gaas caqabado fara badan baa ka soo maray caqabadihii runtii waan isku dayay habab fara badan inaan u xaliyo tan dhaqaalina way ka mid tahay sideeba lacagta looga faa'iideysan karaa qurba joogga oo wadanka loo soo gelin karaa si hab ganacsi loo bilaabo caqabadahaas wali way haystaan laakiin waxaan isku dayay inaan xal u helo xalkaasna waxa weeyaan runtii xawaaladu aad bay noogu dhib yareeyeen markaynu qurba joog nahay inaynu ka faa'iideysano ganacsiguna waxay tahay mid dhiiranaan u baahan especially wadanka dadka bilaabaysid oo gabadhna tahay way ka sixad jirtaa inantii hore hadallo fara badan bay ka dhawaajisay tiri dumarku inay dhiiradaan ganacsiguna waa ka mid marka xawaaladahan odhan karaa iyada imka adduunku iska fududaaday wax waliba digital bay noqdeen laakiin lagu soo dhiirado wadanka la maal gashado oo waliba habka warshadaha ayaan anigu dadku ku xoojin lahaa because taas shaqo abuur bay dadku u sameynaysaa waxay isku xidhaysaana dadkii qurbaa joogay iyo dadkii wadanka joogay oo waxaagu ay noqdaan haddaad qurbaa joogtid wax international oo adduunkana gaarsiin kartid magaca Somaliland aad ka iibin kartid imkana alxamdulillah ixtiraaf baynu haysanaa soo ganacsigu inoo sii fududaanaya
ما ستلا aad bay runtii u mahadsan tahay muna waxaan u wareegi doonaa dr sakariye bade doctore iyadoo mawduucan aynu ka hadlayno sidee baa dadku ay runtii uga faa'iidaysan karaan khayraadka waddanka ee inta badan laga hadlo inuu ku soo biiro nolosha dadka adkaysiga bulshadana sidee baa runtii iyadoo ku dheedana loo adres garayn karayo ka qayb qaadashadooda in barwaaqada la gaadho waayo dadka badankooda waxaa laga yaabaa inay dowladda ka filayaan in barwaaqo la gaadho laakiin iyaga laftoodu sidee bay qayb uga noqon karaan in hadafka la xaqiijiyo waay bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilah su-aasha haddaan toos u galo siduu agaasimuhu sheegay shucayb adduunyada marka la daraaseeyo natural resourceka ama khayraadka dalleeya labada outcome ee uu xusay unbaa ka soo baxa oo ama wuxuu noqdaa prosperity ama problem ama waxaa la yidhahdaa natural resource cares tusaale ahaan labada wadan ee Norway iyo Venezuela markay khayraadka shidaalka heleen 1970-adii statisticska way isku dhawaayeen maantana waxa weeyaan laba wadan oo aad u kala duwan tusaale ahaan Norway imika waxay haysataa 2 trilyan oo pension fund oo dadka loogu talagalay in ay mustaqbalka ku maareeyaan muwaadiniintooda oo wadanka koobaad ee adduunyada waxa adduunyada shirkada jira ee aanu aragno 1.5% waxa iska leh Norwegianka sidoo kale weligood kama daadegaan Human Development Index-ka marka la qiimeynayo dadka horumarka gaadhay adduunyada top 10 ama 10 ka horeeya kama daadegaan marka Human Development Index-ka indicators baa la eegaa Venezuela markaanu barbar dhigno 90% GDP-googa ama khayraadkoogu waa shidaalkaas ay dhoofiyaan sidoo kale 75 ilaa 80 GDP-googu waxa uu hoos u dhacay 2013 ilaa 21 sababtuna waxa weeyaan in shidaalka ay ku tiirsanaayeen halkan maxaan uga dan leenahay marka labada wado ee ay qaadayaan si ay natural resource-kooga u maareeyaan ayaa kala duwan marka muhiimadu maaha geographiga aad ku nooshahay resourceska aad haysato adigoo shidaal haysta macdan haysta ayaa waxay kugu noqon kartaa caqabad aanan inagu maanta filayn marka institutionska maareynaya macdantan ayaa ka muhiimsan in macdan intee leeg baanu haysanaa marka maanta waxaad aragtaan goobaha macdanta in la isku khilaafo mararka qaar khilaafyo hubaysan ay ka dhacaan arrimahaasi waxay hordhac u yihiin oo aanu arki karnaa in macdantan lafteedu ay mararka qaar problem inagu keeni karto haddii aanan helin institutions adag oo si fiican u maareeya marka maadaama aanan weli ictiraafkii maadaama inaga maqnaa macdan badan iyo natural resources badan aanan inagu soo saarin waxaan taaganahay waqtigii fiicnaa ee ugu fiicnaa ee aanu istaagi lahayn aanu ka fikiri kari lahayn dhinaceed qaadaysaan marka ama waxay nagu noqon doontaa caqabada ama waxay nagu noqon doontaa maaragtay barwaaqo sooran iyo inaanu barwaaqo gallo marka geographiga iyo resourceska ku jira inooma ballan qaadayaan marnaba inaanu barwaaqo gali doono laakiin institutionska iyo caqligeena iyo sida aanu ku maareynay xeerasha aanu dejisano ayaa inoo ballan qaadi kara inaanu wadadii saxdii hayno iyo inaanu wada khaldan hayno aad burtu mahadsan doctorku waxaan u soo noqonayaa agaasimaha ka hor intaan su'aasha weydiinna qaybaha dambe ee qurba joogta waxaan ka codsanayaa runtii inay tension-kooda siiyaan oo hadalka iyo saxmadda aynu hoos u dhigno idinkoo aad iyo aad raalli u ah oo mahadsan agaasimaha guud waxaan weydiinayaa maadaama laga cabsi qabo barwaaqadan aynu filayno lafteeda inay suurtagal tahay haddii khayraadka lasoo saaro inay masiibooyin runtii sababi karto maxaa sharci ah aad soo saarteen intaan shidaalka la soo saarin ama aan dahabka la gelin sharciyo ummadda kala heli kara ma soo saarteen aad baad mahadsan tahay mar labaad muddada wasaaradda aan iminka joognay waxyaabo badan baa noo qabsoomay haddaynu ku noqono xagga macdanta waxaynu leenahay xeerka macdanta Somaliland kaas oo qeexaya sida ay uga faa'iideysanayso bulshada Somaliland min deegaan min dawladda dhexe min bulshada dhammaantood waxaan sameynay xeerka ilaalinta
deegaanka xeerka waxaan leenahay ilaalinta deegaanka wasaaradda deegaanku samaysay laakiin regulation area oo halka macdanta lagu qodayo regulation baynu leenahay lagu ilaalinayo waxaanu leenahay community engagement xeera waxaanu sameynay 19 xeer oo ka hortagaya in aynu wadada labaad kaaska qaadno marka anagoo u arkaynay in xeerarka iyo regulationkaas lagu hagayo macdanaha ay noo horseedi doonto wadada koowaad ee barwaaqa sooranka 19 regulation baanu sameynay waxa la sameeyay iyadana maalin dhaweyd ciidanka ilaalada khayraadka oo u gooniya in ay ilaaliyaan goobaha khayraadka taas oo ilaalin doona la dagaalanka illegal mining oo marka macdan la helo waxa dhaca wax la dhaho gold rush inaga inaguma badna ajaanib ku soo carartay deegaankeena oo illegal mining ka samaysa laakiin waxa badan dadkii muwaadiniinta reer Somaliland oo iyaguna iminka ku jira macdan qodashada waxaanu sameynay marka xeerarkaas oo dhameystiran oo ah kuwa la jaan qaadaya wadamada adduunka dhabada koowaad qaaday oo dhamaantood ay inoo dhameystiran yihiin shidaalku isaguna waa la mid inkastoo aan dhammaanteen iminka marayno wadada ugu wacan oo ay barbilowa isla markaana aynu marayno sahamintii oo dalkeena uu ku jiro shirkadaha badanka dalka jooga ay badalkooda ku jiraan sahaminta inta qodaalka ku jirta ay yar tahay marka shirkadu ay qaadato license ama ay meel tagayso waxa ugu horeeya lagu qasbaa waxa weeye environmental assessment plan in goobtani ay ku habboon tahay macdan laga qodi karo waxyeelada ka imanaysa hadhow marka shirkada wax lagu xisaabtamo environmental management plan ka soo baxay assessmentigii la sameeyay iyo ta social ahaan soo gaaraysa hal shirkad oo weyn oo macdan qodis ka wada Somaliland baa jirta gobolka Sanaag community development ka ay sameysay waxa ugu weyn wadada goob loo socon jiray 8 saacadood iminka in lagu tagi karo saacad iyo bad MCH yadii oo ay dhistay waxyaabo badan xagga horumarinta deegaanka ayay qabatay shirkadu iyagan wali xitaa wax soo saarkii soo u gudbin marka waxaan isku daynaa inaan isfahansiino community wuxuu ka faa'iideeyo marka haday community-ga laftarkooda u caddahay faa'iidada ku jirta badanka community-ga reer Somaliland wax resistance oo regulationadooda ay ugu caddahay wax qabadkooda sanadlaha looga qabanayo environment-kii in la ilaalinayo oo shirkadii lagu edit garaynayo environmental assessment plan-kii la sameeyay oo ay og yihiin maadaama dhulka ay ku taalo dhiro muhiim dalka waa sida beeyooyinka oo kale gobolka Sanaag aanu ilaalino marka talaabooyinkaas oo dhan waanu qaadnay waana kuwa la yareynaya khilaafyada dhacay iminka ee xagga macdanta waxay u badan yihiin khilaafyada ka dhaca goobaha garab raratada oo xagga laftarkooda ku salaysan qabiiladii oo berigi hore inaynu geel isku dili jiray u badnayd hadda maadaama xagga geela laga soo guuray macdanta laftarkeeda laakiin xeerarkeena qeexaya deegaanka wuxuu leeyahay dawladda dhexe waxay leedahay wax soo saar ramaynu gaadhin wali oo waynu ka soo horumaray xeerarkeenu way ka horeeyaan xilliga wax soo saarka aad burintu mahadsan agaasima Shucayb Dr. Munan doonaya inaan weydiiyo su'aal kale diasporahu sidee bay uga qayb gali karaan in energy-ga la maalgeliyo hadday tahay macdanaha iyo energy kale sida korontada oo kale in iyagu lacag geliyaan oo horumarka laga doonayo iyagu ay horseedaan suurtagal ma tahay horta si suurtagal way u tahay sinooba ahaa because qofka qurba jooga mas'uuliyad fara badan baa ka saaran halkaas uu degan yahay hadday tahay ganacsi hadday tahay qofku inuu meel ka shaqeeyo halkaas cashuuro laga doonayo hawluhu iska badan yihiin markaanu halkaas aanu joogno laakiin qofka raba inuu ganacsi uu bilaabo taasi qasab way ka duwan tahay maalgashi weyn weeyaan way aad u weyn kolle wuxuu u baahan yahay inuu la kaashado international investors way u fududahay in qofku markuu halkaa joogo inuu helo dad waddanka maalgeliya waa qof halkaa ka shaqaysta fahansana systemka halkaas ayaa halkana ka faa'iidaysan karaa international investors markaad waddankaad keenaysid si ay u maalgeliyaan iyaga laftirkoodu waxay u baahan yihiin
inay helaan warcad hufnaan iyo kalsooni kalsoonidana waxaa ku beeri karaa markaanu waddankaanu nimaadno annagoo dadkii investorska ahaa wadnaa oo wasaaradaha markaanu tagno naloo fududeeyo sidii markii hore laga dhawaajinayay way fududtahay inay international investors la keeno laakiin investment intaa leeg inuu qof kusoo dhiiran karo way yara adagtay markaad xagga aad joogtid laakiinse way noo fududtahay sina aad baa runtii mahadsan tahay doctor Zakariya aan doonayaa su-aasha ugu dambaysa inaan weydiiyo si runtii loo helo badbaado maadaama kheyraad la soo saarayo mararka qaar waxaa ka dhici karaa waxyaaba safety-ga dhib ku ah sidee baa runtii loo heli karaa investment dadkana barwaaqo gaadhsiiya climate-ka iyo deegaankana ilaaliya ugu dambeyntiina wixii laga doonayay laga helo imise jid baa loo mari karaa arrintaa su-aashaasi horta daraasad badan bay u baahan tahay in feasibility study la sameeyo data la ururiyo dhinacna agaasimaha hore u sheegayba in xeerasheenu ay adag yihiin oo ay ka horeeyaan investmentka intuuna imanba ama macdantii iyo wixii intaana la soo saarin dhinaca deegaanka waa kay noo sheegay oo maaragtay environmental impact assessment kolley waa shuruud ka mida baan filayaa siduu sheegay in la sameeyo macdantan la qodayo deegaanka maxay ku keeni kartaa caqabad ama saameyn ay ku yeelan kartaa inta badan waxaanu ognahay investmentkeenu ama qurba joogtu lacagta ay soo diraan globally marka laga imaadaba kuweena lacagta foreign direct investment la yidhaahdo waxaa ka badan waddan walba qurba joogiisu lacagta uu u diro ayaa ka badan africa oo kale wadamada la yidhaahdo global dhaqaale ahaan lowga iyo middleka sanadkii waxay diraan 680 bilyan oo ka badan lacagta la yidhaahdo waa loogu deeqay ama maaragtay humanitarian baa loogu sameeyey arrintaasi markaa soomaalida waxaa la sheegaa 1.5 ilaa 2 bilyan inay sanadkii iyagu soo diraan inagu marka waxaa laga yaabaa 500 milyan 800 milyan in remittance loo soo diro lacagta laakiin ma habaysno ma organize garaysno inta badanna waxay gashaa consumption in family bill loo soo diro iyo housing oo sectorka labaad ee ugu weyn ee soo raaca marka sida looga faa'iideysan lahaa waxay u baahan tahay horta in la daraaseeyo national diaspora policy-gan wasaaradda I was the lead oo qofkii hogaaminayay markii tan kan cusub ee imika activitieskani ku jireen la qorayay baan ahaa waxaanu daraasaynay adduunyada kale qurba joogtoodu markay wadamada investment ay ku sameynayaan sidee ugu sameeyaan Pakistan oo kale kaysu soo qaadanayna oo dad badan oo adduunyada ka jooga ay jiraan Pakistan wasaaradda arrimaha dibaddu waxay u sameysay xafiiskaasi baa isagoo qofku Mareykanka iska jooga oo aanan weligii Pakistan iman ayaa u soo bandhigaya opportunitieska bannaan ee waddanka uu investment ku samaysan karo haddii tusaale ahaan imika ay tahay inuu beeraha investment ku samaysto Pakistan wasaaradda arrimaha dibaddu iyadaa dhulkii u iibinaysa lacagtu soo dirsanaya dhulkii u iibinaysa maxkamadihii iyo garsoorkii baa loo geynayaa dawladihii hoose loo geynayaa qofkii isagoo halkaa jooga waddankiisii investment uu gashanaya wax laga yaabaa marka arrimahaasi iyo in dad kale caalamiga la keenaba waxay ku xidhan tahay nidaamka garsoor ee waddankaasi iyo xeerasha maalgelin ee u yaala dadka si cadaalad ma u kala saari karaan wadamada inay ictiraafay hadduu maanta beeraha arabsiyo uu maal gashado qofka Talaabiib jooga oo hadhow toole la isku qabsado nidaamkeena garsoor wixii si meel ma u saaraya hadduu maxkamad furto weeyaan marka waxyaabahaas ay eegayaan inaguna marka in waxa soo jeedin lahaa anigu la daraasad la sameeyo qofkii guri dhisanaya inuuna iskii una u dhisane wasaaradda arrimaha dibadda iyo waaxdan diasporaha iyo sida policy-ga ku qoran iyo wasaaradaha kale ee maalgashiga ganacsiga in iyagu maabin sameeyaan meelaha waddanka u baahan in la maalgeliyo la sameeyo qurba joogtii loo bandhigo sanduuq loo furo wuxuu ay halkaas soo gashadaan haddii kale waxay noqonaysaa arrin repetitive oo imika haddii la yidhaahdo guryaha macaash laga helaa markuu qofka qurba joog imika guri dhisto ka kalena uu dhisanaya marka in la yidhaahdo war beerihii baa investmentku u baahan solarkii energy-gii kala u baahan in priorities la sameeyo wasaaradda maalgashiga tamarta ka bacdina la isku tago oo la isku geeyo maaragtay wixii ay qurba joogtu
maalgashan karto. Arrinta deegaanka iyaga lafteedu waa muhiim oo su-aashaasaan kusoo xidhayaa. Macdantu mar walba iyo maaragtay resource-ka marka la baarayo waxaanu nidhi environment-ka waxay ku leeyihiin saameyn. agaasimuhu uu sheegay in siyaasadda jirto 2030 World Bank wuxuu sheegay in 130 milyan oo dadka adduunyadii ay gali doonaan category-ga la yiraahdo extreme poverty because of isbeddelka cimilada oo maaragtay meesha ku jira. already waxaan ognahayna sidoo kale uu report gareeyay 40% dhibaato biyo yari in adduunyada imika ay haysato markaa. inagu markaa maxaan u baahannahay haddaad tagtaan meelaha macdanta laga qodo imika god baa la qodayaa macdantii baa laga qotay waxa laga yaabaa meesha $1 milyan in laga helay xitaa caqligii lagu aasi lahaa la waayay oo meesha sidii lagaga tagay markaa waxyaabaha u baahan in la sameeyo transparent law code oo sharci adag oo cad oo aanan koorsi fahayn laakiin dadku ay wada samaystaan oo heshiis lagu yahay revenue-gaasi ka soo baxa macdanta in investment dadka dib loogu geliyo una qofkii maaragtay una waxyaabo kale una ku lumin iyo in la sameeyo maaragtay coordination u dhaxeeya wasaaradaha tii maalgashiga haday tahay maalgashiga waxa laga yaabaa inay ka eegayso perspective-ka maalgashiga in ay keento dad maalgashada wadankii wasaaradii deegaanka waa inay joogtaa markaa environment-kii iyaduna u turaysa markaa runtii shaqo badan bay noo taalla qurba joogana iyo wasaaradana waxaan usoo jeedin lahaa inay wasaaraddu ugu yaraan maalin la sameeyo meelaha la maalgashan karo iyagana lala wadaago. aad iyo aad baad mahadsantahay. aad iyo runtii u mahadsan yihiin. waxaan u mahadnaqayaa Dr. Munamagan, Dr. Zakariya Cabdi Bade iyo agaasime Shucayb Cusmaan Maxamuud oo si qiimo runtii u soo bandhigay wadciga arrintaas ku saabsan iyo sida barwaaqo looga gaari karo kheyraadka waddanka. waynu mahad celinaynaa. sessionkaasna uu dhan yahay qaybta labaad baynu geli doonaa runtii. aad iyo aad bay u mahadsantihiin.